waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin arday maanta waxaan bilaabi doonaa insha Allah haddii Ilaahay idmo casharaanteeni online ka hay'ad ahaa gaar ahaan maadada chemistry-ga waxaan bilaabi doonaa form 2-ga chapter-ka bilaabi doonaa waxa loo yaqaan chapter 6 waxa loo yaqaan chemical reaction equations waa Soomaali ahaan noqonaya falgalada kiimiyada waxa loo yaqaan islaagida markaas waxaan eegi doonaa maanta waxaan qaadan doonaa qaybta koowaad oo loo yaqaan chemical reaction eriga reaction waxa loo yaqaan falgal kiimikeedna waxa loo yaqaan kiimikeed labada eri marka la isku qabto waxa loo yaqaan falgalka kiimikeed falgalka kiimikeedi ardayga chapter-ka markaynu bilowno waxa looga baahan yahay amba casharka maanta qaadan doono waxa looga baahan yahay inuu ardaygu ka jawaabo laba objectives oo qaadana amba laba hadaf oo qaadana labada objectives ardaygu looga baahan yahay casharka maanta aan dhiganayn inuu ka fahmo waxa weeyaan kelmadda koowaad inuu qeexi karo sida loo yaqaan chemical reaction ka labaad inuu qeexi karo qaybaha ay leedahay waxa loo yaqaan chemical reaction chemical reaction ka muxuu yahay chemical reaction waxa loo yaqaan in falgal kiimikeed mar labaad ku celiyo tusaale ahaan waxaan suuraysanaa adoo gurigaaga iska joogo waxa loo yaqaan bal ka fikiraysa example chemical reaction ka fikiraysa waxa koodan soo qaadanaysa marka qooshka iyo biyaha iyo yeast la isku daro kaasi wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaan chemical reaction example karo daily life hadaynu ka fikirnaysa wuxuu noqonayaa ban of fuels shidaalka la gubayo kale hadaba arday marka koobaad waxaan eegi doonaa insha Allah maanta chapter-keena waxa loo yaqaan chemical reaction equation 6.1 waxaan bilaabi doonaa chemical reaction waxaan ardayga waxa looga baahan yahay laba objectives hadii ku xilnaa inuu ka jawaabo kelmadda koowaad inuu qeexi karo waxa loo yaqaan chemical reaction ka labaadna inuu sheegi karo qaybaha ay leedahay waxa loo yaqaan chemical reaction hadaba arday marka koowaad waxaynu eegnaa adeeg marka koowaad qeexana kelmadda loo yaqaan chemical reaction waa this is waxa loo yaqaan chemical reaction oo noqonaya waxa loo yaqaan falgal kiimikeed falgal kiimikeed muxuu yahay baynari arday marka koowaad waxa oranaa waa habka laba shay iyo wax ka badan isugu tagaan oo ay soo saaraan hal shay oo cusub waa habka laba shay amba hal shay iyo wax ka badan ay isugu tagaan isla markaana ay soo saaraan waxa loo yaqaan shay cusub markaynu qeexna arday waxa oranaa badeeg marka koowaad ee process waa habka in which kaasoo waxa loo yaqaano two or more laba iyo wax ka badani oo maxay ah substance walxa react ay falgalaan isla markaana to form ay sameeyaan waxa loo yaqaano two or more laba iyo wax ka badan waa waxa loo yaqaano new substance waa waxa loo yaqaano walxa cusub new substance oo walxa cusub is known as kaasa loo yaqaana chemical reaction kaasa loo yaqaana falgal kiimikeed way arday marka koobaad markaynu qeexnay waxaan nidhi badeeg chemical reaction waxa loo yaqaan waa in falgal kiimikeed waxaan nidhi tusaale ahaan waxaan soo qaadanay shidaalka baabuurka gubayo iyo qooshka iyo biyaha ay isla isku darayo ka tusaale ahaan soo qaadanay waa daily life weyn tusaale maalin kasta aynu aragno hadaba waxaan nidhi marka la qeexayo waa habka laba shay iyo wax ka badan lagu isku falgeliyo isla markaana ay u soo saaraan waxa loo yaqaan laba shay iyo wax ka badan oo cusub
ay soo saarayaan marka koobaad ardayga waxa loo yaqaan definition kiisa ku sheegnay qaybta labaad waxaan eegnaa ardayga waxa loo yaqaan badsalaag waxaan example u soo qaadanaa waxa loo yaqaan tusaale ahaan waxa oranaa waxaan soo qaadanaa a plus b status of the reactant labadan shay ardayga waxay u taagan yihiin shayga loo yaqaano reactant baadeeg shayga loo yaqaano reactant labada shay waxay soo saarayaan laba shay cusub oo loo yaqaano C aan waxa loo yaqaano D C and D na waxay u taagan yihiin ardayga shayada loo yaqaano product baadeeg shayada loo yaqaano products inta ka bacdi waxa oranaa inta ka bacdi waxa oranaa arday waxa si sharaxan oranaa this is waxa loo yaqaano chemical reaction sidani waxa weeye waxa loo yaqaano waa falgal kiimikeed waa this waxa loo yaqaano chemical reaction kiiba waxa loo yaqaano chemical reaction in A iyo B isku tagaan oo ay soo saaraan C iyo D waxa weeye waxa loo yaqaano waa chemical reaction kaas arday waxa loo yaqaana baadeeg in which kaasoo waxa loo yaqaano A and B A iyo B waxa weeye R waxa weeye waxa loo yaqaano reacting waa kuwii falgalayay R reacting waa kuwii falgalayay isla markaana to form waxay sameynayaan waxa loo yaqaano new substance baadeeg waa new substance walxa cusub to form waxay sameynayaan new substance walxa cusub oo loo yaqaano C and D baadeeg waa C and D ardayga waxaanu ka soo qaadanaa in A iyo B reactant u taagan yihiin shayada la isku daray u taagan yihiin C iyo D na ay u taagan yihiin shayada cusba ay soo baxayeen marka waxaan nidhi labadan shay waxa u taagan chemical reaction isla markaana A iyo B waxa u taagan yihiin reactant C iyo D na waxa u taagan yihiin shayada cusba ay soo baxayeen oo shayada cusba ay soo baxayeen haddaba arday marka koobaad waxaan ka eegnaa waxa loo yaqaan labada kelmadood baadeeg labada kelmadood maxay kala yihiin kelmadda koobaad waxaan eegnaa shayga loo yaqaan reactant maxay tahay falgalayaashu maxay yihiin falgalayaasha arday waxa soo qaadana inay yihiin waxa loo yaqaano waa the new substance baadeeg waa the new substance waa walxaha cusub waa the new substance waa walxaha cusub ee reactive falgalaya isla markaana to form sameynaya waxa loo yaqaano substance walxa cusub ee marka koobaad falgalaya ayaa loo yaqaana reactant si kale hadii uu arday xorana oo walxa falgalaya ay soo saaraya waxa loo yaqaana walxa cusub taana waa la oran karaa arday hadda marka labaad waxaan eegnaa shayga loo yaqaano product hadeeg waxay noqonayaan productgaas waxay noqonayaan markay qeexno waxa oran arday waxa loo yaqaano waa the new substance waa walxa cusub ee sameysmaya waa the new substance are formed waa the new substance formed during the reaction waa walxaha cusub ee sameysmaya intii lagu guda jiray waxa loo yaqaano reaction-ka arnois as kuwaasa loo yaqaanaa waxay noqonaysaa waxa loo yaqaanaa arnois as waxa loo yaqaanaa products walxaha cusub ee sameysmaya ayaa loo yaqaanaa products example bay arday qaadana example-ka amba tusaalaha qaadana muxuu yahay tusaalaha qaadana waxa soo qaadana shayga loo yaqaano koobaad waxa soo qaadana shayga loo yaqaano lead nitrate badeeg waa lead nitrate bay soo qaadana waa lead nitrate plus waxaan u falgelina arday waxa loo yaqaano potassium iodide waa this is waxa loo yaqaano reactant kuwan waxa loo yaqaano arday reactant sidii u falgelayaan waxay u falgalayaan waxaan isweydiinaa mar koobaad lead iyo potassium kayba fircoon marka reactivity series ka leeyahay fircoonada bruce ay kala sareeyeen oo ka bilaabaysay sodium potassium magnesium calcium marka loo eegayo kayba ugu fircoon potassium lead waxa fircoon birta loo yaqaan potassium marka potassium waxa meesha ka saaraysa shayga loo yaqaan lead oo maxaa soo baxaya waxa soo baxaya shayga loo yaqaan waa lead nitrate badeeg waa lead nitrate plus waxa loo yaqaan waa lead iodide displace material ma dhacday arday labadan shay ee soo baxayana maxaa loo yaqaan badeeg labada shayna soo baxayana maxaa loo yaqaan waxa loo yaqaan products wadis waxa loo yaqaan products way shaygana muxuu yahay waa aqueous shaygana muxuu yahay waa aqueous shaygana muxuu yahay waa aqueous shaygana muxuu yahay waa solid inuu solid yahay maxaa loo garanaya hadda way sharciyada qaadan doona waxa loo yaqaan si loo kala garanayo arday hadda waxa soo qaadanaa shayda loo yaqaan in terms badeeg kelmadaha ku qaadana
in terms halkaana waxaan ku qaadanaa shayada loo yaqaan symbol calaamadihiya way in terms koobaad qaadana waxa weeyaan number 1 waxaan qaadanaa shayga loo yaqaan solid calaamadiisa maxaa loo soo gaabiyaa waxa loo soo gaabiyaa s way shayga labaad qaadana muxuu noqonayaa arday waxa qaadanaa shayga loo yaqaan gas calaamadiisa maxaa loo soo gaabiyaa waxa loo soo gaabiyaa waxa loo yaqaan g shayga saddexaad qaadana maxay tahay waxaan qaadanaa shayga loo yaqaan liquid liquidka calaamada loo soo gaabiyaa maxay tahay waxa loo soo gaabiyaa waxa loo yaqaan l way sometimes waxa la raaciyaa shayga loo yaqaan aqueous solution waa aqueous solution kana calaamadiisa maxay tahay waa aq way tusaalahaan ardaygan qaadan hadaba example bayagana hadaba la ku qorina waxa loo yaqaano kuwaas example ka in qodanna waxay yihiin waxa loo yaqaano tusaalahaan waxay soo qaadanaa shayga loo yaqaan carbon waxa loo calaamada u jirta waa solid way waxa soo qaadanaa carbon calaamada u jirta waa solid plus waxaan soo qaadanay oxygen calaamada u jirta waa maxay waa gas tis waxa loo yaqaano waan si fiican ugu qori kartaa dhow way waxa soo baxay shayga loo yaqaan carbon dioxide waa neef maxay tahay waa gas way waxaan baranay termski kelmadaha markay baranay oo solid iyo gas iyo liquid iyo aqueous solution ma qaadanay marka waynu ku hor qori karnaa way arday waxa qaadanay waxa loo yaqaan examples of chemical reaction kale daily life waa examples of waxa loo yaqaano chemical reaction waa examples of waxa loo yaqaano chemical reaction laakiin maxaa taking place wuxuu dhacaa waxa loo yaqaano waa taking place wuxuu dhacaa in our daily life maalin kasta wuxuu ka dhacaa waxa loo yaqaano nolosheena waa daily life tusaalahaan maxaa kamid ah waxa loo yaqaano rusting iron birta daxalkeedu maalin kasta uu dhacayo hadii habeen kasta roobdo ama uu baraf jiro waxa loo yaqaan in bir kasta cusub ay daxalaysato example labaad daily life maxaa kamid ah waxa loo yaqaan burning badeeg waa burning of a fuels gubitaanka shidaalkuna wuxuu noqonayaa daily life maalin kasta dhaca gaari kasta maalin kasta uu baxaa shidaal buu gubaa wuxuu soo saaraa carbon dioxide isla markaana waxa loo yaqaan example daily life maxaa kamid ah waxa loo yaqaan change state badeeg waa changes in state isbedel ku dhaca waxa loo yaqaan matter hadii biyo soo qaado talaaga geliso wuxuu noqonayaa ice ka saarnana wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaan liquid hadii dab saarnana wuxuu noqonayaa oil waa daily life maalin kasta dhaca way example daily life ka kala waxa kamid waxa loo yaqaano process respiration processka loo yaqaano cuntarta maqlaninta way kaasina maalin kasta wuxuu ka dhaca waxa loo yaqaano in our cells oo noqonaya in isku geeyo glucose iyo waxa loo yaqaano ama waxa loo yaqaan carbon dioxide waxa jeeda glucose iyo oxygen oo saca carbon dioxide water iyo waxa loo yaqaan energy takes place waxa loo yaqaano in our cells ardayda casharkiina soo sumaraskareyno ma isku soo celino casharkiina maanta waxaynu qaadanay chapter loo yaqaan chapter 6 oo loo yaqaan chemical reaction and equation adeeg waa chemical reaction and equation waa falgal kiimikeed iyo waxa loo yaqaan isleeg waxaanu ka sii qaadanay shayga loo yaqaan chemical reaction 6.1 wuxuu noqonayaa baan ku wada chemical reaction af Soomaali ahaan terminology wuxuu noqonayaa waa falgal kiimikeed reaction waa falgal kiimikeed waxa loo yaqaan kiimikeed casharka maanta aynu qaadanay ardayga waxa looga baahan yahay laba objectives oo qaatin fahmo labadu maxay kala yihiin inuu qeexi karo kelmadda chemical reaction waa kow inuu sheegi karo waxa loo yaqaano examples ka leeyahay waxa loo yaqaano chemical reaction gas qaybta labaad waxa loo yaqaano ka sii wada nashaan laakiin waxaan kulmar koobaad chemical reaction dadku soo dulmaro wuxuu noqonayaa waa habka laba shay iyo wax ka badan la isku geeyo isla markaana uu soo saaro waxa loo yaqaan laba shay iyo wax ka badan oo cusub waa kow way kala wada xanaan A iyo B waxa uu taagay waxa loo yaqaan reactivity C D na waxa uu taagay waxa loo yaqaan product A B waa reactivity C D na waa maxay waa product way reactive waa maxay oo waxa cusub falgalaya product waa maxay oo waxa cusub la soo saarayo marka lagu jiro waxa loo yaqaan falgal kiimikeed hay salaam soo qaadanay lead nitrate plus potassium iodide waxa soo baxay potassium nitrate plus waxa loo yaqaan lead iodide this waxa loo yaqaan reactivity this waxa loo yaqaan product waa shay falgalay iyo shay soo baxay ardayga waxa looga baahan yahay inuu garan karo waxa loo yaqaan solidka calaamadiisa gaaska calaamadiisa liquidka calaamadiisa aqueous solutionka calaamadiisa waxaan soo qaadanay carbon maxay raacinay waa solid oxygen maxay raacinay waa gas carbon dioxide maxay raacinay waa gas way state ku jirta marka way chemical reaction ka daily life ka maalin kasta dhaca maxaa kamid nolosheen waxa kamid ah rusting of iron gubitaanka la gubay waxa loo ama dhaxal ku dhaca waxa loo yaqaan jeeda birta iron gubitaanka la gubay waxa loo yaqaan shidaalka iyo isbedel ku dhaca waxa loo yaqaan matter oo change state iyo waxa loo yaqaan process ka dhaca waxa loo yaqaan in our cells way ka soo jeedona 10 ku xukmino assalamu alaykum